horta waxaan rabaa inaan isweydiino waa ay horta xukuumaddu miyaysan ahayn xukuumadda aynu u xil saaray inay qabato adeega bulshada inay adeegayaashii bulshada inay noqdaan miyaynan ahayn taynu shalay lahayn waxaan u baahannahay maamul magaalo waxaynu u baahannahay degmo cabashooyinkii noocaas ah kuwii loo soo gudbinayay miyaysan ahayn shalay markaynu sidaa lahayn haddii innaguna waxaynu ka tujubaynay baahiyaha ka jira degmooyinkeenna iyo dadkeenna iyo tabashadoodii baynu soo gudbinaynay markaynu soo gudbinnay ee laga jawaabay inaynu maanta booq ka keenno waxaan u arkaa waxaan munaasab ku ahayn iyo inay tahay lagu qabasho intaan markaan ka gudbay aan u soo noqdo horta gobolku sidiisaba waa xidhiidhinu waa meelihii kala fogfogaa iyo degmooyinkii kala fogfogaa sidii loo isugu soo dhaweyn lahaa weeyaan ma aha meel mashaariic bixisa ma aha meel mashaariic lagu qabto oo biyogelin iyo bahjeed lagu maamulaya ma aha taa horta inaan saa u fahanno oo aynu ku mashquullo iyadana ma aha markaan u soo noqday degmooyinka fikir ahaantayda waxaan qabaa degmooyinkani inay yihiin degmooyinkii ugu mudnaa markii dhinac walba laga eego tusaale haddaan kuu soo qaato shaxda buuhoodle oo kale xildhibaankii ka soo jeeday ee qabal ahaan ku soo bixi jiray halkanoo inala fadhiya sanad walbana waxaan idhahdaa degmada iyada fiiq gacanta iigu taag miisaaniyad intaa leeg inay hesho wuuna ila ansixiyaa maxaa diidaya markaa walaalkay inuu helo degmo inuu helo meel uu matalaad ku inuu helo meel bahjeedkiisii aniguna aan ula ansixiyo waxa weeyaan markaa meelahani meelihii ugu habboonaa weeyaan in la ansixiyo oo golaha xildhibaanada waxaan ka codsanayaa in loo ansixiyo meelaha kale tabashadu ka jirto intaynu ansixino wixii tabasha way jiraysaa xukuumadda iyo kabaneegu meelana kumayna khaldamin ma odhan karo wixii khalad laakiin in hoos inta loo eego oo dib loogu noqdo in mataqaanaa berri baa loogu soo dari karaa raxmadda ilaahay baa dhulka ma wada gaadho dhammaan degmooyin lama wada heli karo maamul magaalooyin lama wada heli karo lama cabanayana lama odhan karo cabashadu waa iman waxaan xukuumadda iyo kabaneega iyo mas-uuliyiinta ay khusaysa ka codsanaynaa dadka cabashada qaba inay si gaara u eegaan inay si hoose arrintooda inta u baadhaan ciddii u qalanta in loogu soo daro hadda waxaan isku haysanaa ina waxa weeyaan meel heblaaya mudnayd oo ka maqan mooyaane kuwan hadda la ina hor keenay ma mudna cid leh ama xildhibaan lihi ma jiro dhammaanta waa isku raacsannahay marka aniga fikraanteeda waxaan qabaa in la ansixiyo wixii kale ee dambe in mataqaanaa sideeda loogala xaashimo maadaama bulshadu cadaalad darro badan ay tirsanaysay hadda waxaan dareemayaa in cadaalad darradii ay burtay intaasoo dhanna 40 sano wax fuli waayey oo la raadinayay in maanta la helay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha degmadaas boqolkiiba boqol waa tu soomaalinimada sii xoojinaysa waa tu walaalnimada sii xoojinaysa waa tu cadaaladda sii xoojinaysa ayaan leeyahay aad iyo aad baan ugu soo dhawaynaynaa ta xigta waxa weeyaan horta bulshadan waa bulsho maadaama oo cadaalad badan tirsanaysa ay tahay hal mid oo keliya inay kaafin karto ma malaynaya maamul magaalo u baahan tahay degmana u baahan tahay anu sidaan qabo weeyaan afyeen ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan golaha xildhibaanada ee sharafta leh run ahaantii waxaan u mahad celinayaa xukuumadda sida fiican ee maaragtay ay u soo dhaweysay in qaab dhismeedka deegaanka la ballaadhiyo waa mid loo baahnaa waayo dalku wuxuu ku jiraa competition ama tartan baa lagu jiraa tartanka lagu jirana waxyaabo wax lagu qaybsamo waxa ka mid ah waa qaab dhismeedka in la soo dhaweeyo way fiican tahay marka waxyaabahan qabo waxa ka mid ah kow in maaragtay daraasaad dhab ah in laga sameeyo ayay ahayd daraasaadkana
in loo soo jeediyo golaha xildhibaanada way fiicnaan lahayd waayo si cadcadaan ay u timaado way fiicnayd arrinta kale in la soo dhigo daraasaadka si cad loogu cadeeyay ahayd degmooyinka cusub degmada ay ka go'ayso populationkeeda in daraasaadka si fiican loogu cadeeyay ahayd laakiin mustaqbalka dambe in waxyaabaha iska saxno oo wax muhiima arrinta kale soo jeedinay waxa weeyaan saan wada ogsoonahay 25kii degmo hore wax matalaado xildhibaana ma laha oo maaragtay heer federaalba degmooyinkaas kama duwan gashan marka ka xukuumad ahaan in iyadana la qaato oo la dirdirgeliyo oo maaragtay 25ka degmana in maaragtay sanadka soo socda haduu ilaahay yiraahdo in xildhibaano official ay yeeraan meelaha qaar kood waxaad arkaysaa meelan degmaba lahayn oo maaragtay meelaha ay ka soo baxayaan xildhibaanadii oo degmooyin hore ay jiraan taana in maaragtay qaab dhismeedka in isagana sida uu dhaqsaa badan leh in loo soxo waan soo jeedin lahaa arrinta kale ee muhiimka ah waa qaab dhismeedka maaragtay gobolada saan wada ogsoonahay wakiilada noo jooga wakiiladaas kuma filnaan u qabaa in maaragtay xafiisyada horumarka oo kale in la dhaadhiciyo qaab dhismeedka tusaale ahaan madaxa xafiiska waxbarashada madaxa xafiiska beeraha in qaab dhismeedkii la waxeeyo sababtoo taas waxay naga saacidaysaa mustaqbalka dambe maaragtay geedi socodka shaqada inay saxanto iyo sidoo kale in la sameeyo gobolada qaab dhismeedka marka la dhaadhiciyo miisaaniyadana in loo dhaadhiciyo ayaa fiicnaan lahayd waayo golahan inuu maaragtay dhaxal ka tago ayaa muhiima marka intaasaan soo jeedinayaa waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waan soo dhaweynayaa bayaankan qaab dhismeedka ballaarinta dowladdeegaanka Soomaalida waxaan isleeyahay waa bayaan muhiim u ah oo in badan golahan la sugayo in la hor keeno 4 sano doorashada kadib galfadhi kastoo la qabto waxaa laga warsugayay ama la filayay in qaab dhismeedka ballaarintiisa ay shacabku naga warsugayeen maalin kasta galfadhigii la galaba ajandaha maxaa ku jira laha marka maanta aad baan soo dhaweynayaa in lagu soo daro meelaha degmooyinka loo soo xushayna waxaan isleeyahay waa meelo mudnaa marka la fiiriyo laba sababoodba dhanka amniga oo meelaha xuduudo ku yaala ay u badan yihiin dhanka matalaad la'aanta dad badan oo deegaanka wax ka degan oo matalaadoodu markii hore ay ka dhex maqnaydna waxaan isleeyahay way ku dhex jiraan marka waan soo dhaweynayaa waxaan xildhibaanada sharafta la ka codsanayaa inay ansixiyaan qodobka labaad waa dhanka qaab dhismeedka gobolada la ballaariyay ama wax lagu daray meelahan isleeyahay way mudnaayeen in gobolada la kala qaado oo talaahaan ugu soo dari lahaa in muuqata salaam gobolka Doolo kale gobol aad u ballaaran weeyaan oo mudan in laba gobol laga dhigo ilaa 3ba marka bal golaha xukuumadda iyo madaxweynaha waxa ka codsanayaa hawshaas in hoos loo eego oo bal wax laga fiir wax loo qabto haddii xukuumaddu isla qaadato in uu qalmaayo laba gobol laga dhigo waxaan codsanaynaa xukuumadda in hawshaas maaragtay dib loogu noqdo oo qorshaha dambe insha Allah lagu daro aad iyo aad baan mahadsantahay salaamu calaykum raxmatullah marka horta xageen ka nimid in la yiraahdo fiican iyo meelan waxay ahaayeen maamulka ugu horeeyay boqortooyada Xayl Silaasi 14 taqlaagizaad ayuu ahaa dargiina 14 ka buu kiflaagar yiri Soomaalidu waxaan ku lahayn 14 kaas Hararge Sidaamo iyo Baali Hararge waxaan ku lahayn bal hadda meesha aan joogno fiiriya inta gobolod leedihiin iyo waxaan lahaan jiray qallaafo qabridaha dhagax buur jigjiga goday ciise iyo gurgura gursum oo fiiq warada ahayd iyo xamaro iyo kuwan oo gursum hoos imaan hayay walwal iyo wardheer waxaa la dhahaa dhagax madow ilaa iyo luxun kulli waxay hoos tagayeen dhagax buur ilaa yahood waxa laga maamulahay maanta fiiq markaan wada hoos tagaysay alxamdulillah markii dambe uu dargiga structure dambe u bedelay markii hal sano u arsantay inuu dhaco iyo wuxuu ka horeeyay gobol bay noqotay kadib maanta fiiq waa laba gobol waa erar iyo maxaa la dhahaa nogob waa 15 degmo oo waxa aad loogu farxo meel aan dhalin mara horta hal degmo oo 5 dhashay baa jirto waan ku faraxnay dhammaan degmooyinkan markaad tagtid afar bay ahaayeen maanta 11 ayaa la marayaa iyo hadda ku soo biirayba kadib waa Sidaamo Hararge waxa laga maamulahayay awaash ka soo bilaaw ilaa Ferfer
dhulkan hadda xaggan ay towsan oo deegaankeenna ah ee hadda gobolka laga dhigay waa jarjar iyo gaara guraaja ay ku dhex jireen maba dad ahaanba looma dirsaneenba waxaad meesoo dheh ilaa iyo meelahan kale kuwan kale istarriga ahana ayagana waxay ku jireen ciisana gurgura awraaja maanta way ka soo wada dhaxbaxeen laba iska dhaaf saddex gobol hadii la siiyay waa wax lagu farxo ka soo tag sidaamu waxa laga soo maamulayay awaasa ka soo bilow ilaa doolo oddo 6 gobol bay lahayd 6 gobol annaka hal gobol kuma aan lahayn waxaan ku lahayn oo hoos imaanaynay areero oo hadda mooyaali meelahan daawo gobolka la yiri uu hoos imaanayay oo wax degmo sheegtaba aan ku lahayn doolo oddo iyo mooyaali maahine meel wax ahaydba ma laha dhulkaasna maanta dhan laga bixi jirin maanta meeshay marahayaanna waan la soconaa inta gobol ay heleen in wax loogu biiriyo maahine wax marka annaka arrimahaas oo dhan yani adeeg noqota inta ka soo kacday awaas inta soo socotid 600 kilometer meelaha oo hal degma aan ku lahayn heerkaatan soo maray ilaa wixii ka soo tag guradha moole iyo dhulka reeyta la sheegayo baali bay hoos maanayeen baali waxaan ku lahayn ceel karri awraaja waa meeshan hadda ceel karri la dhaho awraaja bay ahayd baali waxay ahayd 5 gobol 5 gobol 4 gobol marka la isku daro ceel karri ba ka weyneed 6 degma hoos imaanaysay waa hargeyle baarey jarati iimay bari dolobay wama hayn guradha moole iyo doolo manna beel la dhahay hoos imaanayeen ay ka soo go'een ilaa qarsaduula kulli guradha moole oo waliba qaar wax lagu heesmaayeen wax kale oo aqoonsan ma leh dhul aad u ballaaran waa hodan ah way sii dhaafsan yihiin goob agteeda maanta Soomaali baa degan harudumaal bidirey dhulka la dhaho salaxaad iyo wixii gina waabe awraaja bay ka tirsanaan hayeen looma aqoonsaneen waxa loo dhan oo aan helay walaalayaal waan taageersanahay hal aan siyaan leeyahay wixii kalena waa fiiri doonaa maamul magaalooyinka golahan wuxuu bayaan ku dhisay maamul magaalooyinka deegaanka inuu sharci yahay jamaacadaha hal baa lagu dhisayaa hal bayaan wakaaladaha hal bayaan baa lagu dhisayaa tafaariiqaha laakiin mid kasta in gaar loo dhiso waa regulation oo golaha fulintaas kale taa waana qaabka u fahamnaa ee maalin kasta hal magaalo in loo keeno ma aha annaka hal mar baan ansixinay awoodana annakaas in regulationka nafteeda hadartii waa kala soo noqon kartaan taa waa mid gaarkeeda ah qaabka waa in loo fahmo wakaalad kasta markaan dhisan in hor keeno ma aha asaaska wakaaladaha horumarinta waan asaasnay finished hal bayaan regulation laakiin wakaalad hebel in dhahan ayaga u taala qabala shigishig iyo isku raraan iyo waxaas inay sameeyaan golaha fulinta u taala waan siinay dastuurkan ugu horeeyay degmooyinka gobolada awood baan siinay waan xoojinay bay ahayd markii aan dib u hayn sameynay 1994 ayaan ka noqonay waan fududeynay decentralization maadaama uu yimid hadda nafteeda waxyaalo badan oo lagu noqonayo ayaa jira awoodo badan oo madaxweynaha ka maqan baa jiro awoodo golaha fulinta ka maqan baa jiro awoodo annaka naga maqan baa jiro hadda golaha wakiilada federation rag baan u diraa hal sharci oo la sheegayo dastuurkeena inaan dad annaka aan doorano u diro ma jiro waxyaalo badan oo saad qabiil nooga hajiree dastuurkeena aan isku soo noqono aan habeysano waa maasantii run ahaan bayaankan wax ka bedelka qaab dhismeedka dawladda ee degmooyinka iyo qaab dhismeedkan bayaanka wax ka bedelka qaab dhismeedka deegaanka marka hore run ahaan aad iyo aad baan soo dhaweynaya waliba waxaan ku horeynayaa xagga degmooyinka runtii waa istaraatiiji fiican oo dhinaca cadaaladda tallaabo fiican hore loo qaaday waxaynu maanta ansixinaynaa ama maanta aynu fadhinaa waxa weeyaan waa degmooyin deegaankeena dhexdiisa dhulkeenna waynu xukunnay aynu xildhibaanada u ahayn ama mas-uuliyadda aynu haynay weeyaan runtii waxaan qabaa in istaraatiiji fiican xuduudaha ahmiyad weynna la siiyey daraasaadna la sameeyey indhala'aanna aan la guurin waaqici in maanta laga duulay meelihii u baahnaa inta badan in cadaalad laga sameeyo tallaabadii koowaad in la qaaday meelo kale oo kulley tabashooyinku way badan yihiin marka taa anigoo bogaadinaya oo aad iyo aad boqolkiiba boqol soo dhaweynaya haddana waxaan leeyahay meelo kale oo iyada lafteedana ku habboonaa oo waxa weeyaan in laga sameeyo ama in hoos loo eega ay ahayd oo aan doonaya maanta in badan baa kulley laga hadlay laakiin maanta doonaya in qalin caadiya lagu qorto iyada lafteedana oo waxa weeye mustaqbalka haddii la yidhaahdo in saxitaan laga sameeyo ama waxa weeye kalfadhiyada dambe in lagu eego meelahaasi kulley waa dhulka maadaama aad u maray waxa weeyaan meelaha kow ka ah degmooyinka aan odhan lahaa waxa weeyaan meelaha in xoogga la saaro kow
meesha Xardin la yiraahdo ee degmada Iimay degmada Maaysa ka tirsan dhulka ugu mudan ee ugu fog weeyaan ko ay ka tahay waxa weeyaan haddii istaraatiiji tahay oo dhinaca xuduudahana way buuxinaysaa fogaantina way buuxinaysaa marka meelaha noocaas oo kala ah dee maanta ma oranayo halkan ma la soo raaciyo laakiin maadaama cadaaladii la horseeday oo cadaalad maanta ay tahay in meelaha noocaas oo kalaana waxa laga yaabaa hogaaminta lafteedu inayna xog ma garanaysaa ama baahidu maadaama iska badan tahay intii hore loo ansixiyay kolley way mudnayd meelo badan oo mudanna way jiraan saa daraadeed in maanta qarankii cadaaladdu maanta maadaama tallaabadii koobaad qaaday tallaabada labaadna in halkaa laga dhigo waan soo jeedinaya dhinaca kale waa gobollada runtii gobollada structure-kooda in la kala qaybiyo iyada lafteeduna waxa weeyaan waa tallaabo fiican gobollada in la kala qaybiyo ahayd aad baardanka waa gobolka Faafan baa ka mid ah anu kolley shakhsiyan gobolladii aan sugayna islahayn waa la kala qaybinaya gobolka Faafan baa ka mid ahaa oo de waxa weyn hadda 5 iyo qaab dhismeedkiisu 20 uu ku dhawaanayo ka laftiisa lagu daro ka kale waxa weeyaan gobolka Jarar aad baan soo dhaweynayaa in la kala qaybiyo oo gobolkaasi aad iyo aad buu dhul weynaa degmooyinkuna way badan yihiin istaraatiijikaalna marka la eego dastuurka dawladda deegaanka Soomaalida ee dib loo habeeyay qodobkiisa 49aad markaynu soo qaadno wuxuu dhigayaa farqadiisa saddexaad xarafkiisa ta iyadoo la tixgelin isagoo la tix raacayo tirada dadka dhuleed ee deegaanka iyo socodka dhaqan dhaqaale nolosha bulshada waxay dhisayaan qaab dhismeed ismaamul ama maamulo dheeri ah oo ka deegaan ahaan aynu leeyahay goluhu taasoo awoodiisa ay tahay waxaan soo dhaweynaynaa qaab dhismeedka dawladda deegaanka Soomaalida lagu soo kordhiyay haddii gobollo tahay haddii maamul magaalooyin tahay iyo haddii ay degmooyin tahayba iyadoo taa aan tix raacayno bayaanka siinaya golaha fulinta in iyagu gobollada iyo maamul magaalooyinka ay siiyaan mid la mid ah inuu qodobkani siinayo golaha in iyagu darsaan iyagoo saddexda qodob ka eegaya in ay maamul magaalooyinka ama tuulooyinka ay ku dariyaan degmada ama deegaankaba in iyagu soo darsaan nala sameeyo ka bacdi daraasaadka dhammaystiran ee lagu sameeyo dhaqaale badeed iyo dakhliba in loo soo bandhigo golaha iyadoo si cadaan leh ay ka dheehan tahay hase ahaatee hadda bayaankan limkalena soo hordhigay wuxuu sheegayaa oo kaliya hata magaca iyo qaab dhismeedka lagu sameeyo golaha dawladda deegaanka Soomaalida hase ahaatee wax daraasaada oo tixraaca iyo maabkii dakhligii iyo badkii ummadeed ee dadka tiradoodii ee halka loogu talagalay inay lagu sameeyo ka degmahaan ama ka tuulahaanba midna ma caddo degmadii horese waxa dakhliga iyo saameyn bulsho ay ku keenaysay bulsho ahaan laftigeega lagama jirin oo daraasad rasmi ah oo la soo bandhigay ma arkayno marka taasi meena ahayn baan leeyahay awoodii golaha in ay fulintu ay marorsanayso su'aashaasaan weydiinayaa ta kale waxaan su'aasheeda labaad waxaan u galayaa gobolkan Faafan waa gobolka ugu population badan uguna administration badan degmahaan iyo maamul ahaan marka la eego caasimadii deegaankan ay ku taalo wana mudnaa in la kala qaybiyo waana goboladii ugu bad ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaanba mudnaa in la qaybiyo hase ahaatee aan ilaa imika wax gobolada la soo qaybiyo aan ku jirin marka sababta maxaa keenay taasaan weydiinayaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wax ka bedelka qaab dhismeedka kolley waxaan qabaa inuu yahay bayaankii ugu mudnaa in la hor keeno golaha intii aan soo joognay waayo dad mudnaa inay wax helaan ayaa dulmanaa oo intaasoo degmo deegaanka ka mid ah oo maxaa la yiraahdaa intaasoo qabalay oo kala fogfog oo dad aanay adeegii dawladnimada aan la dhadhansiinin aanay gaadhin ay wali jireen ayaa xildhibaanada deegaanka ka mid ah goobtan fadhiya sidaas la mid ah degmooyinka qaar waxa jira xitaa dad waxa jira tacadiye ay ka soo gaadhay sistamyadii hore oo heer qabalay la hadda taagna caruuro agooma ah rajooyina dhibaataysan oo nidaamkii dawliga aabowna gaadhin baa jiray salaadaan soo qaato degmo ka tirsan gobolka Faafan oo la yiraahdo Buladari baa ku jirta degmadaasi kulay dhibaatadii soo gaadhay waxaan ka wada daragsanahay ilaa haddana
may haysanin bay ka dhigan tahay wixii loo baahnaayo adeegga asaasiga ah waa mid aan soo dhaweynayna taas talabaad degmooyin waxaa jira iyaguna xuduudaha ku yaala oon iyagana adeegyadu ayna gaadhin iyagoo landskii populationkii labadiiba uu deegaanka ka mid yahay haddana haddii ay ilihii dhaqaale ka helaan deegaanada jaarka si fudud waxay u fududaynaysaa inay raaci karaanba marka dadkaasoo kale waxaa lagu kasban karaa waxa weeyaan in degmo laga sameeyo nidaamkii dawligaha uu gaadho dadkii adeeggii ay helaan si loo soo jiito dadkii haddii aan intaa ka gudbo waxa weeyaan bayaankani waxaan qabaa anigu daraasaadka lagu sameeyey inuu yahay mid cilmiyeysan oo ka duulaya daraasaad dhabo cilmiyeysan inuu ku fadhiyo golaha baarlamaanka ee sharafta lana waxaan ku codsanaynaa inay ansixiyaan waad mahadsantihiin ka xildhibaan ahaan anigu shakhsi ahaan markaan ka hadlo waxaan leeyahay cadaaladii baa maanta la helay way jiraan baahiyo badan oo deegaanka la qabo dad badan oo u baahan inay matalaad ay helaan balse kuwan maanta helay way mudnaayeen in la bogaadiyana waan qabaa xildhibaanadan waxaan nooga mahadnaqayaa intoodii badneed ee hadashay inay bogaadiyeen soona dhoweeyeen annagu haddaan golo xildhibaano nahay ama baarlamaan nahay cadaalad baa meesha u fadhinaa wixii shalay helay degmooyinkii hore waa sax siyaasadda qaabkay ahaydna waanu garanaynaa igaga gufe kuwa mudnaa iyo kuwa igaga gufe ahaa iyo kuwa iyagoo la arkayo oo cad laga dhaqaaqay baa jiray marka haddii kuwii cadaaladda u baahnaa ay cadaalad heleen in la bogaadiyo waan mahadnaqayaa kuwa u baahanna mustaqbalka dhow inay iyaguna ay helaan waan rajeynaya insha allah waxaan bogaadinayaa qaab dhismeedkan hadday maamul magaalo tahay hadday gobol tahay meesha ku habboon iyo cidda u baahan iyada laftirkeeda haddii daraasaad la samaynayo in daraasaadkaas si dhaba loo sameeyo waxa mustaqbalka iyo waxa miiska saaranba in ay mudan tahay maanta tusaale ahaan markaan soo qaaday degmada calen hadda iyo degmada shilaabo ka go'day inta badan xildhibaanadu way garanayaan baaxadda ay ku fadhido adeeg bixinta markii laga eego xagga amniga markii laga eego xaqiiqda markaan ka hadalno baahi dhabay u qabtay inay degmo noqoto adeeggeeda ay isku filnaadaan xagga amnigana maadaama ay xad ku taalo kilomitir aad u badanna uu dhankaa naga jiro in ma garanaysaaye amniga halkaa laga ilaaliyo oo amniga uu ka xakamayso dhibaatooyin badan baa hadda ka hor soo wajihi jiray marka waxaan leeyahay waan bogaadinayaa golaha xildhibaanada ee sharafta lena aan ka codsanayaa in daraasaadkan la sameeyey ee la soo dhigay inaan annagoo cadaaladda eegayna u hiilinayna matalaaddii ummadda shacabka aan matallo hadday noqoto keliya uma hadlahayo degmada hadda aan ka hadlay tusaaloon baan u soo qaatay dhammaan degmooyinka aan u hadlayo waxaan codsanayaa wixii daraasaad u baahanay dhabana in daraasaad lagu sameeya hadda mustaqbalka dhow wixii hadda miiska saaranna inaan ansixinno hadday gobol noqoto iyo hadday degmo noqotoba aad baad mahadsantihiin iyadoo lagu salaynayo arrimaha leegay hadday xagga amniga noqoto xagga horumarka xagga dhaqaalaha midnimada bulshada iyo xagga siyaasadda si guud gobol amba degmo ama ismaamulka soo beer kulli waa guuli noo soo beertay horta in xankaa loo eego qaab dhismeed la bixiyo wax micnaha ma leh laakiin habka loo hirgeliyo amba yoolkii ujeeddadii laga lahaa markuu fuliyo buu qaab dhismeedkaas noqonaya qaab dhismeed fiican xagga amniga haddii looga dan la wax ka qabto xagga horumarka wax ka qabto xagga waxaa siyaasadda wax ka qabto oo dowladnimada la gaadhsiiyo goobaha ayna gaadhin guud ahaan deegaankeennu marka deegaanku waxaan qaban waa deegaan ballaadhan hal maalin tabashadiisa lagama wada jawaabi karo kulli gacanteennay ku jirtaa maanta waa 14 degmo halkaasaan fadhinaa haddii 200 degmo haddaan sixinno seen doonaan u gaadhsiinna miisaaniyadda ma wada qancayno tabashadu way jiri uun gobol kastana in wax loo beeriyo waxa weeyaan beeri helo uu rabaa marka hal maalin kuma wada lagama jawaabi karo room hal maalin laguma dhisin 15 sano markaan soo eegnay deegaanka 250 degmo ahaa 15 mara hal mara 25 mara 2 mara marka 15 sano hadda waxa u dhaxeeya 50 iyo 7 degmo yaa soo beertay goboladu 9 2 4 15 marayaan maal magaalooyinku 4 2 4 30 bay marayaan kaanu si guud waxaan qabaa guddiga presidentka hawshan soo eegay golihii fulinta deegaanka soo eegay
guddiga joogtada ee xildhibaanada soo eegay han ansixinno tabashooyinka iyo meelaha kale u baahan way jiraan han darisno kalfadhigu kanun maaha kii 3 bilood ba qaban 6 bilood ba la qaban ku degdega la qaban inta si fiican loo darso han sameeyno meelaha gashada laga soo bixiyay lagu qanci karaa waxaan qaban arrinta la darsayo in la xoojiyo oo lagu wada qanco daraasad fiican inta la sameeyo meesha u qalanta population-keega square kilometer-ka ay ku fadhido baaxadeeda waxa weeyaan xagga amniga waxay kala dhanka siyaasadda waxay kala in la sameeyo baan qabaa marka si guud gobol aan maanta waxilin ma jiro amba degmo ha gaadho amba ismaamul ha gaadho amba gobol ha gaadho baahiduna way sii kala darnaan wala sii rabeen hadda aanu garin baan degmo la rabaa haween huursan la rabaa dayac baan la rabaa hardiin baan la rabaa marka baahidu way jiri uun marka aanu xagga wanaagsan aanu aragno hal xisbi iyo hal aragti maadaama loo nahay wixii caawasho jirina in si fiican loo darso oo kalfadhiyada la keeno bay noqon doontaa marka aanu hawshaas aan aragno aan saxnaan qaba wad masantiin waxaan ugu horeyn waxaan si kale laab ah u bogaadinayaa go'aanada cadaaladda ku dhisan ee xukuumadda ay qaaday kuwaas oo fursad u furay shacabkii lagama maarmaanka u qabay in la arko la maqlo lana tixgeliyo marka waxa anaga waan bogaadinaynaa haddii aan nahay xildhibaanadii deegaanka waa fursad u soo korodhay shacab badan oo u arkayay in la tixgeliyo la maqlo la arko waa maalin taariikhi ah waa maalin muujinaysa in deegaanka oo dhan laga dareemayo waxqabad run ahaantii xukuumadda waxay muujisay go'aamo iyo garasho siyaasadeed oo aan la dafiri karin oo lagu saleeyay baahida dhabta ah ee shacabka ay qabeen waxaan leenahay tani ma aha oo kaliya isbeddel maamul ma aha waa iftiin waa albaab u furmay horumar adeeg bulsho iyo kalsooni ay dad badan sugayeen muddo dheer run ahaantii waxaan rajaynaynaa go'aanada taariikhiga ah in loo bedelo ficil muuqda laguna dhaqmo si cadaalad ah iyo hufnaan ku dheehan tahay ugu dambayn anigoo ka faa'iidaysanaya fursadayda qaaliga ah waxaan leenahay waan bogaadinaynaa waana soo dhawaynaynaa xildhibaanada sharafta lena waxaan ka codsanaynaa inay cod buuxa noogu ansixiyaan aad baad u mahadsantihiin